أساس نوصل أقل الحيض هل كان محربا إنه نوشيا وحيدك يحلح أقل الحيض حيدك أنت وغير وحيري يوم وليلة وحبيد الله معناه هذا مهن حيد أنت وغير وهل هبين يهل مالين وديك حولي وكسر أساس ما وجدد وحواي ساعة وديك كان جوجي كم سقط كود وحوهي لح معلوم لحداث معلومات ساعد والبديق مساعد ساعة واحد يعكرت إن ما أنت جوجو عاود جوجين بري جوجو أنا قوس عيته ما مي ديك فرنا ديك عادي كا وحال ربع ساعة واحد ديك جالس جوجو أنت أقول يا مركل اللي يسكب جيو وين أفر لا تنسى أي جارت كم سقط 6 ساعة مانتا 6 ساعة مالين كلا 5 كلا 4 كلا 6 كلا مركل اللي يسكب جيي دور كمان مود ديك قبتي ساعة دي مركل اللي يسكب جيي ويسكون نقدين محلي أفر لا تنسى مركز سبحان الله الحيض لكن هدي وجاري ويهار كاس وشنتي معلومات مركل اللي يسكب جيي والنقطة 6 ساعات ماذا شاف عيد أمية قانين حيض دم فساد احنا ديك يبقى تكلا اي كنت اقل الحيض يوم وليلته وغالبه 6 أو 7 سؤال كان واحد غالب كوضع انت بدناaba oo gabdhaha hay dhiigu wuxuu yiri walix ama toddob واكثر هنا 15 يوما شان يتولى وباللياليها بندودنا لا سعد شان يتولى ugu badan inta ugu badan oo dhiigu socokaro وشنيتون حدود دافع محدع حدود شنيتون دافع وحال لقو تيمبرينا ولقو حكومة إنه يهي استحاضة وحوي ديق اسكا سعودة عن هاي الوقت وعليكم السلام أقل الطهر اسكيز الكاميرا لا كاميرا ده اسكيز الراستات اوكي أقل الطهر بين الحيضتين طهرك وغير ودحمري كرا لبا ديك حيري و15 يوما شن يتولى معناها كبدا ديغا كدعي way ka daahirsan diigi hore oo ku dhacay hadana marka la diig kala ku dhacay labadan diig muddada ugu yar oo ay daahir xaqabto waa shan oo wax ka yar ma dhici kara وغالبه انت ugu badan oo ay dumarku daahir ka yihiin waxa waaye 24 يوما أفر إلى بطن مالموت أو 23 يوما أما هو صدح لبطن مالموت محيكو حرانتها صدح إلى بطن كي أفر لاتنكو محيكو حرانتها تيهر وكي 6 أو 7 هذه 6 نقطة مع سحرة 24 هذه 7 مركي وراء 6 هاد محلينا 7 هذه حصارة 23 ولا حد اللي أكثر أنت أقبض الحد ملك ومجرو إنجو أن لي هي طاهر نمط الجواد أنت اسمع عفكرت حد أكرم أنت إنه كل دعاء أفر بلاد وش كل دعاء دنا معلم كل دعاء لا بس أنا وش كل دعاء ما لها الحد
halkaas wuxuu uga baxay xayd warkiisu waa fara badan yahay xaydka laakiin kitaabku waa kitaab kooban aasaaska bis ayaa laga baranaya markii kutubta xogaa ronron la gaaro sida manhajka oo kale aaday u kululaanay hawsha dhiigga oo waxaa kusoo darsamaa mustaxaadada dhiig maxaa la yidhaha dhabar furanka gabadha qabta iyadiyaa marka intaasoo nooc noqonay oo mushkilo ah wadaadada laftirkooda marka la weydiiyo xukunkooda hawl fudud maaha waxay u baahan tahay macrifo ballaaran culimmada qaarkood waxay sheegeen raggii culimmadii horaa baababka fiqhiga meelaha ugu dhibka badan ayuu ku jiraa baabka aqalu nifaasi majatun majja waxaa loo isticmaalaa kabsaqa candhuufta oo kale qofka hal mar dhag siiyo majja waa soo tuuristaas oo hal mar soo tuuraya wuxuu ka wadaa dhiigga gabadha ka imaan karaa inta ugu yar waa in hal mar dhiig ka soo baxo laakiin inta badan meequu dhiigu hay karaa waqaalibuhu 40 yawma inta dumarku u badan yihiin waa 40 meeqa ugu badnaan u dhiigu soco karaa maanta ay dhashay marka laga bilaabo wuxuu yiri wa aktharuhuna 60 yawman wa 60 maalmood hadduu dhaafo maxaa lagu xukumaa mustaxaab way ka baxday nifaaskii waqaalibuhu 40 meelahan waxay ka mid yihiin meelaha dadka qaar ay u fahmeen sidii la rabay si aan ahayn waxay u fahmeen gabadha hadday dhasho 40kii ku jirtaa maalin 40 kuma ahayn 40 sharcigu yiri 40 kan maalmood khasabay ku tahay ma ee 40 kay hadda ka hadlaan waxay tahay markii dumarka la fiiriyay in badan oo kamida ayaa 40 kaas maalmood dhiigu haya laakiin macnaheedu ma aha gabadhii inta dhashay 20 bari kadib eber noqon ay dhiigi ka istaagay in la leedahay 40 keen ku jira ujeedadu saas ma